shacabka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa dhigay banaanbax ballaaran iyagoo ku baaqaya in magaalada laga saaro ciidamada Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Ciidamadan ayaa horay loogu qaaday degmada Balad Xaawa iyo deegaanada ku dhow, waxaana dawladda Kenya ay dejisay gudaha Mandera. qaar ka mid ah shacabka ayaa ka cabanaya in ciidamadaasi ay ku hayaan xadgudubyo iyo dhibaatooyin saameyn ku yeeshay nolol maalmeedkooda. duqa magaalada Mandera Maxamed Khaliif ayaa dhowaan si rasmi ah ugu baaqay madaxweynaha Kenya in magaalada laga saaro ciidamada Jubbaland. dhanka kale, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Kenya ayaa sidoo kale ka hadlay arrintan, taasoo sii kordhisay cadaadiska lagu saarayo dawladda Kenya oo ilaa hadda aan ka hadlin arrimaha shacabka Mandera.